qorshayaal badan iyo isbedelo badan ayaan sameynay ku saabsan xagga ciidanka badda. isbedeladaas waxaa ka mid ah ciidankii dib u habeen aan ku sameynay oo aan si wanaagsan u soo ururinay wixii difaaca xeebaha ahaa iyo navy wixii ahaa intaba dooman dheereeya aan haysano oo ilaa hadda aan badda ku ilaashano aan ku marmarno oo dhowr ah oo qaarkood ciladeysna oo aan wada kicinay oo maanta kulligood howlgal diyaar u ah inay ka falgalaan badda gudaheedii. waxaan sameynay muddadaas gaaban qorshayaal badan annagoo raacayna awaamirta taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan ku shaqaynaynaa, annagana toos asaan u hoos tagnaa annagoo raacayno tilmaamaha ka soo baxa madaxda sare sida madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo golayaasha wixii ka soo baxa tilmaamo ah anagoo raacayna ayaan waxaan sameynay qorshe ah sida loo horumarin lahaa ciidankan badda in aan wada hadallo iyo xiriiro aan sameynay duwal badan oo ay noo ballan qaadeen in ay nala dhisayaan baddii oo aan rajeynayno qaarkood waqti dhuuba inay soo galaan maraakiibtoodii iyo doomankoodii inay waddanka soo gaaraan. ciidankana tababaro badan ayaa la soo siiyey oo meelo qaar laga soo siiyey, inta dhimanna ama gudaha lagu siinaya ama ciddii markaasi saaxiibka nahay oo waxna siisay in mataqaanaa meeshoodii tababar ay ku siiso, labada bay u furan tahay in la yeelo. waxaan rajeynaynaa mustaqbalka dhow oo aada u dhow weliba in ciidankan uu noqdo ciidan laysku hadleyn karo, ummadda Soomaaliyeedna ku faani karto, diyaarna u noqonayo wax alla wixii ku saabsan difaaca badda iyo xeebaheediba awood u yeesha inay noqdaan ayaan ku wadnaan rajeynaynaa. haddii alla yiraahdo ballanqaadkaygana waxa waaye inta hadda aan sameyno iyo ka badan inaan sameyno oo ciidanka aan u sameyno kalsoonidaasana ummadayda aan siino in waqtiyo dhow lagu soo bandhigi doono maraakiibtii iyo doonyihii iyo waddankan difaaci lahayd xeebahoodii iyo badahoodii difaaci lahayd inaan soo bandhigi doono haddii alla yiraahdo. taasna ay tahay dadaal iyo annagoo ku fikirayno in ciidankayga xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidanka badda ay ku soo noqdaan sidii hore ay ahaayeen dadka sharci darada ah oo ay dawlad ka socdaan, dawlad kasta ka socdaane waddankan dad baa iskale, dalka dad baa iskale, khayraadka badda ku jirana nooc kasta ha noqdee dadkan dalka le ayaa iskale. marka waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan sida sharci darada ah ay ku wadaan, caalamkao dhanna waan u sheegaynaa in arrintaasi gacanna lagu siiyo si dadkan kalluumaysatada iyo wixii la mid ahba waddankani looga qabto sharci darada kuwa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay ka soo qeyb galaan ka mid noqoshaha ama ka mid ahaanshaha ciidanka badda Soomaaliyeed oo ah difaacii waddanka dhinaca badaha iyo xeebaha.